الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة. سورة الفاتحة إلهي قرآنك وحكيري ولقد آتيناك نبي وحانك السيني ولقد آتيناك 7 من المثاني تضبط الله علماء وحيكون فسرين تضبط أصل لبضا إنه قرآنك أوي إنه سورة الفاتحة أوي مركة فاتحة والقرآن العظيم آنكو سيننا وقرآنك يوردما بإيضا لقدقه أما تضبط لبضا وفاتحة القرآن كان وإنتي لمانتيس مركة سورة الفاتحة وسورة إلهي سبحانه وتعالى ونقع دون صدي إن المعلين كستا تضبيط وانكالي aan salaada ku dukano barakadeeda iyo waxa la yiri kutubihii hore lagu soo dejinaa la yiri suuradaani wax lamida ma jiraan maxaa yeelay quraanka inta oo faa'iideeyay iyada kaligeed faa'iideeyaysa hal iraasi jumla ah marka suura oo cadiimatul qadri ah waa asaasi culimadu yiraahdeen markaas waxaan doortay bal ana waxaan ka dhihi karaa aan ka iraaho oo suurada marka macnaheedana aad u weyn yahay saasoo ilaahay saas qadarteeda quraanka lagu bilowdaa suurad makiya waa la yiraahaa waa isku khilaafsan yahay laakiin hatta waxay baad culama leeyihiin inay hataa suurad makiya ay tahay waana awwal suuratin nazalat kaamilatan la yiraahaa waa suurad ahaan iyadoo kaamila u soo degtay ilaa quraanka suurado soo wada degta hal marna waa jiraan laakiin tan waa tii ugu horeysay aayada soo degdegana waa jiraan marka barka dambe saxaabada ay isku dubrideen markuu nabiga soo yeelay suuradan marka macaanida quraanka sidiisa mujmalka ay u kulmihaysa ahkaam iyo yawmul qiyaamahana waa ka hadlaysa marka dadka bani aadamka qaybaha ay leeyihiin waa sheegaysa saas darteeda umul qur'aan lagu maraado quraanka hooyadiis umul kitaabna waa la yiraahdaa umul kitaabka hooyadiis والسبع المثاني تضوض labadana saahan meesha way sheegay suuratul hamdi waa la yiraahdaa suuratul salaad waa la yiraahdaa ilaa salaada lagu dukada waaqiyana waa la yiraahdaa mid dhowraysay shaafiyana waa la yiraahdaa mid lagu caafimaadaay sida soo socota oo midkii ladiiqa ah oo la qaniinay markay ku akhriyaan nabiga wuxuu yiri ma yidrika annaha quraanka suuradan yaa ku ogeysiyo atuu yiri Abu Sa'id al-Khudri nabiga kaleey salaatu wassalaam inay tahay mid lagu caafimaadayo hatta caafimaadka waa lagu akhriyaa saas darteed hatta Soomaalida bacdigeed ma wada ahana saan walaad xamar iyo gaarahada degan waxay yiraahdeen wal faatixada noo akhriya ama Soomaalidu dhama bay yiraahdeen saas yiraahdeen laakiin suurada Soomaalida darka afar ay ka dhigaan afar faatixa noo akhriya dhahan iyagoo marka aad u barakaysayo suurad hatta caamiga way culimadiiba ma ahan kaligood dadweynihii oo dhili caami culimo kala ma laha faatixada dadka oo dhan wada yaqaan waa dadka oo dhan warka waa ku filan tahay marka suuratul faatixa waxaan fahmaynaa dadka qaarkiis qofka kaligeed taa yaqaan inuu quraankiiba yaqaan iyadoo ku celceli karaa wuxuu quraanka ka helaayana waa ka helaaya hatta macaani ahaana inta ka sheegi doona hadda inta ilaahay naga karsiyo marka suuradaha kale waxyaabo badan ay uga socon tahay waxa kamid ah waxyaabo ay uga socon tahay rukn min arkaani salaad wa salaada oo arkaanul islaamka tawxiidka marka laga yimaado arkaanta mid ugu fadli badan waa salaada arkaanta iyada ugu fadli badan marka shahaadateynka laga yimaado marka salaadaasna nabigu wuxuu yiri fala salata liman lam yaqra bi faatihatil kitab quraanka qofkan faatihatil kitab ku akhrin salaadiisa waxba ma ansaxayso nabigu yiri la salata liman lam yaqra bi faatihatil kitab rawahu al-bukhari wa muslim hadithka bukhari muslim wada wariyeen waxa kamid ah ruqya tahay oo qofka mariidka marka lagu akhriyo shufiya bi idinillah ilaahi caafim idinkiisa waa lagu shaafiha لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي قرأ على الذي فبرئ وما يدريك أنها رقية
رقية إن أيتها ياكو شاور رواه البخاري أبي جبران الصومالي أيضا أخرستان حديث كسوكي الله واتهمر ويتبشرين إلهي تقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألغو بالأوضية بسملة وآيات سورة هردان إلى سورة برموغي فاتحدنا كامدة ساسي إلهي مركا مقع إلهان كب الله ويعنيقو أدها إيا توفيق دبا وكالميسها أن مقع إلهي أن كب الله إلا بسم الله إذا waxay ku tacalluqaysaa waxa oo markaa wax kasta lagu bilowdaa bismillaahida ama bismillaahi la yiraahdo ama bismillaahir rahmaanir rahiim hadda tawaatan waa bismillaahir rahmaanir rahiim quraanka bismillaahi kaligeed waa ku jirtaa bismillaahi mujriha wa mursaha waxyaabaha marka la bilaabo hadda cuntada oo kale bismillaahi allihi bismillaahir rahmaanir rahiim wala dhihi ma hadii quraanka la bilaabana bismillaahir rahmaanir rahiim allihi meelaha qaar kood markii neef la gowraco kor bismillaahi allihi meelo badan oo kamid bismillaah leeyahay meelaha qaar koodna waxa leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka allahda oo ismullah rabbil alamin غيركيس إلهي من لغو مقعابا الله إلهي لا لغو مقعابا سبحانه وتعالى لأنه هو المألوه المعبود متك لغا إلهي يشوء العابد الذي تفزع إليه الخلائق وآلنا مخلوق ورقا حيان الله سيقال لا لغو مقعابا إلهي أسماء ذكرنا سيقى كفر عميسا إلهي حوائجته ودنا اللهم قال أسماء ودنا أسماء الله ذا سيئون قهيسا وأسماء إلهي متك أقوقين والدا الله متك أقوق كل من بدن واعي أسماء ذكر ودن أو إلهي أوليها سقاش هذا أما هو كلا هذا اسمك الله يتابعه هنا لله